geesiyiinta ah ee Soomaaliyeed ee amniga dalkan ummadan ku howlan oo qaarkood dhaawac yihiin maanta dhaawacooda halkan qaarkood aan ku aragnay qaarkoodna isbitaalada kale dhaawacooda uu jiro oo runtii yani waxa ay sameynayaan yani nafuris aan caadi ahayn ay tahay waxaan leenahay waa maadsantiin ilaahay aan ka abaal mariyo waxa wax ugu fiican oo qof bini aadan iyo hadiyad ugu fiican oo qof bini aadan uu bixin waa naftiisa inuu bixiyo naftooda bixin wiilashaas duruufo adag weliba ayagoo ku sugan waxaan leenahay muxuu ahaay allah idin barakeeyo muxuu dadaalkiina ilaahay hala jiro kuwii cadowga ka guuleystana mar walba allah idinka dhigaan leenahay intaa kadib shacabka Soomaaliyeed waxaan leenahay halloo midoobo halloo soo wada jeesto dagaalka nimanka nabadiidka cadowga ee ku faanayo annaga dadkii laayna annaga dadkii dilnay annaga daarihii duminay annaga sumcadda Soomaaliya iyo magaca Soomaaliya ay leedahay hoos u dhignay annaga muxuu ahay dadkii muslimiinta ahay oo maxaan ku yiraahdaa qaarkood waawba intii dhimatay qaarkood ayagoo weesa qabo dhintay cishii u diyaar garooba ama cishii soo dukay dhintay يعني waxaan leeyahay ummadda Soomaaliyeed ee war fahma oo wax garta oo dadkan loo loogo tani siyaasad ma ah did ma ah cadow kala dibadeed ma ah war waa dad isu soo bahaystay in ay jiritaankiina la dagaalamaan waxaan leeyahay intaas ayagana waxaan leenahay wiilasha Soomaaliyeed meelahaas muxuu ahay jirow saakin meesha ay ku dhintay ayagoo dagaalamayo war waa leeyahay khalday khalad ka soo noqdo oo waagu ha idin bariyo gudcurka ka soo baxa waa dalkiini waa dadkiini waa diintiini ya waxa aad maanta maxaan ku raadayay dhibaatada ay haysato oo dhibaatada haysan ayaga dhalinyarada Soomaaliyeed waxaan leeyahay dhalinyaro kuwaasi inay dadka dilaan dadka duumiyaan dadka